بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله. maanta taariikhdu waxa weeyaa waa saddexdii bishii koowaad sanadii 2023. maanta codkeeyani waa taxanaheennii ahaa maxaad ka taqaanaa gumaysiga madooba Ethiopia, ama waxaa la dhihi karaa dhinaca kale wax ka baro. sida awgeed qaybtii hore baan noo soo gudbiyo hordhac ahayd. qaybtana marka waa qaybtii labaad oo ah maxaad ka taqaanaa gumaysiga madooba Ethiopia. qaybtan waxaa la yidhahdaa tusmo. marka walaalayaal si fiican u dhagaysta. suuragal ma tahay in nabad waara laga gaadho gumaysiga madooba Ethiopia? su-aashaasay ku bilaabanaysaa marka qaybtan labaad. dagaal ama dhibaato kasta in xal laga gaadho waxaa aas-aas u ah in asalka dhibaatada lasoo afjaro. gumaysiga Ethiopia sida magaca ka muuqata waa qobtallo qoomiyada aan raalli iska ahayn, mid ahaansho la isku sanduleeyey. waa qobtal ku samaysmay dhagar iyo ku dul noolaansho. waa qobtal reer Yurub ay isku toleen iyada oo lagu ilaalinayo sarreynta dadka iyo diin gaar ah. maanta diyaar ma loo yahay in dhibaatada qobtalka la xalliyo xaaladaha taagan ee kow Tigray iyo Axmaaro waxay isku hayaan sheegashada dhulka Walqayta iyo Raaya. waxay isku hayaan hoggaanka iyo dastuurka. qolo waxay qabtaa confederationka waxa la yidhaahdo iyo federalism. qolana waxay qabtaa dhexroorka centralism ayaynu ugu magac daraynaa. labo Eritrea waxay Ethiopia isku hayaan deegaamo xuduudda ah baadhame iyo xuduudda dheeraran ilaa buuraha casab agteeda. saddex Axmaaro waa qoomiyadda qobtalka ku danaysata meel kasta oo ay magaalo ah ay degan yihiin. waxay rabaan in xuduudda qoomiyadooda ku ilaaliyaan nidaam dhexroornimo ah. afar Oromo waxay leedahay qobtalka annaga ayaa ugu badan, annaga ayaa ugu dal iyo khayraad badan. nidaam furfuran oo qoomiyad walba dalkeeda kaga taliso kuna ilaaliso xuduudda guud oo lagu heshiiyo in aan wax yeedhina mooye wax naloo yeedhinahayaa ma jiraan. shan qoomiyadihii lagu sii qobtalay shucuubta koonfureed gudaheedii way isku dulmanaan. waxay u xuubsiibteen ismaamullo ilaa 3 ah. weli way sii socotaa kala dhaqaaqu. hadda mid ayaa la isku hayaa u magac bixinteeda. 6 Benishangul iyo Gambela waxay dhabarka ku hayaan dalalkii walaalahood ahaa oo horey looga soo gooyey. waxay wadaan dagaal ay ku garab galayaan Oromada si loo soo dejiyo kala tagga qobtalka. 7 dalalka reer galbeedka waxay dabada ka riixayaan in loo soo diro guddi baadhis xuquuqda aadamaha gaboodfalladii iyo dacadtigii ka dhacay Tigreega. waa sababta ay reer galbeedku rabaan in ay ku soo
faragashaan gudaha Ethiopia iyo gaar ahaan Tigray laga yaabo in ciidamo nabad ilaalin loo dalbo gobolada Walqeyta iyo xuduudda Eritrea waa dhici karta in qaramada midoobay reer galbeedku markii ay dhibaatadii ay farabaratay ay xal waayeen Ethiopia waa laga gaari karaa barnaamijka United Nations muuqaalada siyaasadeed ee qobtalkan Abyssinia ka jira sawirkooda maanta ah waa sida iyo arrimo kale oo qarsoon suuragal ma aha duruufta siyaasadeed dhaqan dhaqaale iyo bulsho ee ku gadaaman hoggaanka gumaysiga in la xalliyo dhibaatooyinka taagan bulshada dalka Ogaadenya oo ah midda la isku wada waafaqsan yahay in la gumaysto waxaa muuqata in ay iyagu isku maqan yihiin waxaa la isku wada hayaa oo loo tartamayaa baarinimada gumaysiga Ethiopia ee kala fadhiya bulshada Ogaadenya waxay hadda hayaan kursi xileed qandaraas maamul tuulooyin ceelal iyo soohdin dhuleed oo la kala riixanayo bulshada Ogaadenya waxay fadhiyadooda kaga hadlaan saalaaliyaan cidda ku adkaanaysa lootanka Ethiopia ee xukumi doona xil ka qaadis xil dhiibis laga fulinayo qolo walba qolo ayay u insirxaanaysaa waxaa lagu doonayaa xaaladda Soomaaliya qaybaheeda madaxda Kenya arrimaha bariga dhexe dagaalka Ukraine iyo Ruushka iyo barafka dunida qaybaheeda dhuleed ee waqooyiga ka dhacaya waxaan leenahay marka Allah subhanahu wa ta'ala hayna gaarsiiyo maslaxadeena iyo midnimadeena hana inaga koriyo indha jaraadnimo dhawida tusmadan waxay ka hadlaysaa waa gumaysiga maxaad ka taqaanaa marka gumaysigaasi waa qobtalka la isku keenay maantana waxaa inagaga filan xogtaas ee tusma inoo ifinayso sidaas awgeed halgamayaal walaalayaal taageerayaal Soomaalida Ogaadenya ay meesha joogtaan adduunka wax walba waa la arki don't surprise marka hala yaabina adduunka wax walba aad arkaysaan sida awgeed don't surprise too much aad ha u yaabina sababtoo ah rususheenii suubaneed Allah subhanahu wa ta'ala kor ahaaye dushooda nabadgelyo iyo naxariis dushooda ha yeele ayaa waxyigii qaarkood laga qaadan waayey ee bal meeshaas ogaada sidaas awgeed innaka waxaa ina saaran inaan xaqa ku dhawaaqno taas oo soo sax ma aha waa sax weeyaan tan kale tusaalahan iyo sawiradan iyo dhacdadan dhacaysa ee taagan natiijooyinka dhalay waa hoggaankii aragtida gaabnaa hoggaankii aragtida gaabnaa ee gumaysiga u galay markii ay ka qoosteen xalkii gumaysiga u keenay ayaa sababahaya in marxaladdu ay sidan u ekaato natiijo la-aan ay u ekaato dhanka kale waxaan dhammaan kuwa baraarujinahaya kuwa isku tashiga u halgamahaya waxaan leeyahay hore u socda waxaad gudanaysaan waajibaadyadiina mid ka mid ah ummadan gunta ah ee xorriyadeedii ka hor ku jirta ugu dambaystii waxaan ku baraarujin dhammaan taageerayaasha Jawxo iyo xubnaha xaqa ah inay ku baraarujin waad aragtaan in hoggaankii Jawxo fashilmay
sanadii 2018 oo tiro badan oo jawaxa gumeysiga u galeen isku dhiibeen ee sidaasna ay xaraan tahay in ay ummaddu intay qaybsanto kala taageerto ajendayaal feeg ah ee waxaad qabsataan in intaad fadhiga iska kacdaan shirweyne dastuuri ah oo xaq ah oo aad leedihiin guul iyo gobonnimo qaybtanna waa qaybtii labaad ee ahaa maxaad gumeysiga ka taqaanaa insha allah taxanaheennana waan sii soconaynaa maanta xalku waxa weeyaan shalayna ahayd maantana ay tahay insha allah berrina noqonaysaa gumeysiga madoobi wuxuu yaqaanaa xabad maskaxdiisa gasha sidaa awgeed ilamaa qalinka iyo qoriga la mideeyo waa habeenkii xalay ahaa oo tegay in hoolaal dambe aysan waxba tarayn sidaa awgeed waxaan leeyahay gumeysiga madoobi Itoobiya ha dhaco Soomaalida ogaadeen ha xorowdo وأنا وأحمد سعاد وأسمح محمد السوسون نقد وناكسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.